kulankan oo iskugu yimaadeen odayaasha waxgaradka iyo weliba haweenweynaha ku dhaqan degmada Sarmaayo isla markaasna ugu tacsiyeynayeen dhammaanba dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay dagaaladii ka dhacay duleedka degmada Talex ee gobolka Sool ayaa maanta ka dhacay degmada Sarmaayo. kulankan oo ahaa mid ballaadhan isla mar ahaantan intii uu socday ay ku dheeraadeen dadkii ka hadlay sida ay uga xun yihiin dhacdadaasi iyo weliba saameynta ay ku yeelatayba ayaa wuxuu ugu horeynba ka hadlay Cawil Cabdilaahi Nuur oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Sarmaayo. halkan waxaanu ka tacsiyadeynaynaa dadkii reer Talex ee dhibtu ku gaadhay degmada Talex ay ku geeriyoodeen dadka 8 qof ah iyo dhaawacyadii iyo dhibaatadii ka soo gaadhay walaalahayo تعصيب بلارن أو تيرانية يعني هالك هذا ودرينا وقتك أو هدير فوجا نقعد دارنا إنه صحافة أو نجف فوجا أو ملول بينو شفت بقولي 6 كيلومتر يعني لو هرسله الله يمان يعني لو كنت تحصيل إنه ولا لها يرير تلاح دبتي كادي كل سوق كادي عيد مدي كسعودي بلان وحنودرينا تعصيدا تيرانية له يلا وحنا لنا ولا ليال ونقرب تاجنا هاي ضدك يجي باتهين دبتوا وين لقمنا وحاتهين قرب كيجي وبنان هدي أنا هاي بيلوين تاسر ما يتال تعسيداس أيان مقع سر ما يبين كشوت ريا أنا يقول عول عبد الله النور طلبات تعسيك الدب وحان هالكباق وجت شدينا إياه السمادة حرتي مركز أي شوغان يعقال ينقربود إن وحلا قبته دبتها كدع ذي طلح dhinaca kale waxayna sidoo kale goobtaasi hadal ka soo jeediyay Garaasalebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud qaar kamid ah odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo waliba sidoo kale haweenweynaha ku dhaqan degmada Sarmaayo oo geestooda ugu baaqay inay ka waantoobaan shakhsiyaad aysan magacaabin hadallada xasaasiyada leh ama keeni kara iska horimaad bulshada dhexdeeda ah. marka ugu horeysa amarka ilaah baale wixii dhacana ama dhigi doonana ilaah baa qadartiisa haya waxa ilaahay xukmin ma dhacaan marka horta dad islaamay nahay sida loo qabto oo qadarta ilaahay la diidi wixii dhaca waxa diinteenu sheegaysaa ama dad islaamay ku nahay wixii dhaca in qadar rabbi yihiin tabarka la dhaafo marka saakaan ku hadlaynaa taasi buu yahay laakiin waa hadal daahay oo ciidan dhago inay yeelan baa laga yaabaa taa sida darteed xumaan lama aanu aamusnayn waxaan la aamusnayn naxdin iyo meel aanu ka hadalno aanu gaari weynay iyo annagoo aad arrintaa uga naxnadoo wax wada hadlaba la waayay dhowr casho hadda 7 casho dhasantay ilaa 5 casho waa wada hadla waan weynay arrintaas xumaanteeda iyo foolxumada iyo dhibaatada meesha ka dhacday dad badan wada hadlaa ma aanu yeeran nin wala meeshii uu joogay uu ku qaboobi waayo waxa soo kale waa waxaan hadin dheeraada leh oo dadka ruuxda ku rida oo say u dhaceen aan la garanay ma reerka ay ka bixeen dadkaas iyagoo ka wada dhintay ragga dhintay dadka ay ka bixeen eheliyadooda taxsi ayaan u dirayaa dhammaan taxsi baan u dirnay ilaahay samir yeemaan naga siiyo guud ahaan dhammaanteen taxsi baan u isaga wada dirnaa oo yaana ilaahay naga samir siiyo baan leeyahay ani waa Yuusuf Maxamed Xasan weeye waxaan leeyahay ilaahay laga yaabo oo macnaha ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala kullu nafsin daqiiqatu min nafs kasta xilli bay dhimanaysa ilaahay qadaray inay saacada dhintaan oo waqtiga dhintaan ilaahay baa qoray ma dhaafeenay waxaan ugu leenahay oo inta qanadaas kale ka raacsanahay yacanaha ayaan loo gudbin waxaan meesha yacana qabin anigu waa Maxamed Xasan Cige waxaan taxsiin ka direynaa shaqadii naxdinta lahayd ee ka dhacday Talex ee dadna ku dhintay dad ku dhaawacmay dadna hantidoodii ku waayeen waxaan leenahay taxsiin tiraan ka direynaa dadkii dhintay waxaan ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo dadkii ku dhaawacmayna Allah caafiyo anigoo Cabdi Garaad Maxamed waxaan odayaashii hore la qabaad oo aan idin direynaa taxsiin tiraya leh ووحي دعا إلهي بقى قدري أن كحنا هاي سيدا وحود العين وحان ولانا هاي مركة هرسامرية إيمان مركة حكتا وحي دنتا إلهي هاونا حريستو وحي دعوانا سيدا هرلو إلهي عافيو
aad baan uga xubnahay qadartaa ilaahay dhigay keenay. magacaygu yahay Luul Ibraahim Garaad. waxaan taasi tiiraayo iyo murugale u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay dhibaatadii ka dhacday Taleex. anigoo ku hadlaya gabdhaha tuulada Sarmaayo ee magaca ugaariyahan waxaan u tacsiyeynaa hawshii ka dhacday degmada Taleex oo ku dhacday qadarta ilaahay. cidina aanay ka tashan hawlaha macnaha noocaas oo kala ah haddii ay dawlad tahay iyo haddii ay shicib tahay wax iska dhacay uun weeyaan wax qadar ilaahay ku yimi weeyaan wax macnaha eed la saari karo qof bini aadan ma jiraan. marka ilaahay waxaan uga barinaa eheladii iyo hooyooyinkii ay ka tageen dadka dhintay ilaahay inuu samriyo iimaan ka siiyo. waxaanu kale oo codsanaynaa oo aanu dadweynaha reer Taleex ku boorinaynaa in ay ka digtoonaadaan hawlaha oo ay ka baxaan cudurka ku jira oo dhibaatada ah oo codada oo shicibka iyo hooyooyinka iyo magaalada iyo deegaanka iyo dadka magacooda dilaya dhibaatada ah oo ay ka baxaan waxyaalo maartay aan laga tashan in uu qof waliba ku dhaqaaqo ama dhalinyaro ha ahaado ama waayeel ha ahaado ama mid kale oo macnaha meel ka yimid ha ahaado waa in ay eegaan dadnimadooda iyo magaaladooda nabadgelyada iyo wanaagga yaalay. Cabdiraxmaan Jaamac Xashi Cabdiraxmaan Wadani Somsa TV Garowe.